Soomaaliya oo mar ahaan jirta mid ka mid ah wadamada Afrika ee ugu horumarsan xoogga ciidamada ayaa haatan mar kale hiigsanaysa dariiqa heer wanaagsan oo lagu gaarsiinayo tayada iyo tirada ciidamada. Dhowrkii sano ee ugu dambeeyay kumanaan dhalinyaro ah oo ka baxay jaamacadaha dalka iyo dugsiyada sare ayaa ku biiraya qaybaha ciidamada. dad waxaynu nahay darsi loo bilaabo dabka garabka saaro sida booliska xoogga dalka iyo asluubta Soomaaliyeed. Waana fariin cadeynaysa dadka aqoonta leh oo ciidamada ku biiraya in si xowli ah ugu socoto dadaalka dib u dhiska ciidanka. Xidigle Najiib Siyaad Cali oo tababar leeli sargaal xigeen ah ku qaatay xarunta Turkisom muddo sanad ah kaalinta koowaadna ka galay waxaa loo soo qaadan karaa tusaale ahaan arintan. haddaynu nahay dufcadii ugu horeysay ee ka qalin jabinaysa kuliyadda leyle saraakiil xigeenada ee Soomaaliya hadafkeenu wuxuu yahay anagoon ka weecan nidaamka daacadnimada waajibaadka iyo sharafta wadanka isla markaasina ah tusaale askari dhameystiran anagoo ka shaqeynayna ammaanka ciidankeena kuna tiirsan ama daacad u ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. isla markaasina ah wadani dhab ah in shacabkeena aan gaarsiino nabad iyo horumar. Waalidiinta Soomaaliyeed ayaa iyagana garawsaday muhiimadda ay leedahay ka mid noqoshada ciidanka oo u taagan difaaca dalkeena taasoo muwaadin kasto xil ka saaran yahay inuu kaalintiisa ka qaato. sayta kolkuu ii dhawaaqo uu yidhi aabbo xafladii Turkiga jirta waa qaadan kari waay war aabbo 12 bilood buu ku jiray 12 bilood aabbo hadda waa inaad maanta ka soo qayb gasho wax weyn bay ahayd farax weyn bay ahayd. Wasaaradda Gaashaandhigga Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixisay in tababarada saraakiisha oo dibadda loogu qaadi jiray dalka lagu tababaro taasina waxaa Soomaaliya ka caawinaysa dowladda Turkiga. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed uu maanta diyaar u yahay dib u dhiska dalka Soomaaliyeed. dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama diyaar u nahay waxaan ku faraxsannahay inaan helno saraakiil xigeenno oo isugu jira ciidamada cirka ciidamada badda iyo sidoo kale ciidanka infantryga ee dhulka inaan helno waxaan aaminsannahay waqtigii loogu baahnaa aan baahidoodana haysay ayaan helnay. Saraakiisha dhalinyarada ah waxay door hogaamineed ku leeyihiin qaybaha ciidamada waxayna ku soo kordhinayaan hal abuur la jaan qaadaya tiknoolajiyadda cusub. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo soo noqday wasiirka gaashaandhigga waxa uu sheegay in dowladdu ay fursad u abuureyso dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ciidamada ku jira inay qabtaan hoggaanada talisyada ciidanka. waxay la tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meelaha loo baahnaa in laga dhiso inay ka mid ahayd saraakiil xigeenada marka waxaan leeyahay waa arrin muhiim ah. saraakiil xigeenada waxaan kula dardaarmayaa maanta waa muhiim inaad dugsigan ka qalan jebisaan aadna noqotaan saraakiil xigeenno ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kana qayb qaadanaya dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. dhalinyarada waxbarata ee ciidamada ku jira waxay fariin u direen asaagooda u hanqaltaagaya tahriibka iyo baagamuudada inay ku soo biiraan ciidanka si ay qayb uga noqdaan dib u dhiska dalkooda. kuwa dibadda jira kuwa tahriibaya waxaan kula talin lahaa inay dadaalaan dadkooda wax ay u qabtaan halkaan ay imaadaan dhiigooda ay huraan naftooda ay huraan si ay dalkooda dib ugu soo celiyaan burburkii ku dhacay iyo wixii ka baaba'ay inay baabi'iyaan si dalkooda dib ay ugu soo celiyaan sidii uu ahaan jiray wiligiis. Soomaali wiligeed awood ay lahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed awood u lahaa haddana wuu lahaan doonaa annagana waxaa haynaa wadadii awoodda ciidanka Soomaaliyeed aan dib ugu soo celin lahayn. Deeqa uu kala jiino warbaahinta qaranka Muqdisho.